بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد walaalayaal kusoo dhawaada pagekeena xariir official nasoo booqda hadaad nagu cusub tahay subscribe fadlan inoo saar pagekan waxaan kusoo gudbi doonaa waxyaabo kala duwan oo bulshada muhiim u ah inta badan waxaan diiradda ku saari doonaa arrimaha caafimaadka iyo sidoo kale khaasatan arrimaha qoyska ayaa inta badan diiradda ku saari doonaa haddan waxaan rabaa inaan ka hadlo caabuqan dunida sida weyn u saameeyey covid-19 ama coronavirus ayaan intii maaragtay maxaa la dhahaa aqoonteyda ah ama intii maxaa la dhahaa wasaaradda caafimaadka ay soo sheegtay ama World Health Organization ama maxaa la dhahaa Somali Ministry of Health intii aan ka maqalnay ayaan in la wadaagi doonaa ayadoo maxaa la dhahaa qaab tikraar ah ayaan ikugu soo celi doonaa walaalayaal sidaa ogtihiin cudurkan waa cudur pandemic ah markii la qeexayo waa cudur pandemic ah pandemic markaan ku leeyahay waa world wide waa cudur adduunka ka jira waaye marka waxaa moodaa bulshadeena inteeda badan inaysan jirin wax la yidhaahdo maxaa la dhahaa ka warqab ama maxaa la yidhahdaa diyaar garow loo diyaar garoobayo cudurka ma jecleen inaan kasoo muuqdo camera horteeda laakiin markaan arkay bulshadeena sida ay uga falcelinayaan cudurkan iyo halista uu leeyahay baan ku dhiiraday inaan soo duubo muuqaalkan aad arkaysaan marka ilaahay hanaga ajar siiyo intii aan saxi doono wixii aan qaladnana nafteena iyo shaytaan ayaan u eersan doonaa ramadaan kariim walaalayaal sidoo kaleeto maxaa la yidhahdaa waan ogahay cilmigeyga iska yar haddana waxaan gartay inaan si oo maaragtay kusoo celis camal ah ama tikraar ah waxaa la yidhahdaa waxa haddii aad tikraar ku samayso yu-athir ay kugu samaysaa ama saameyn marka saas liajligeed ayaan kugu soo celinayaa wacyigelinta wasaaradda caafimaadka ay maaragtay ina siinayso wacyigelintaas oo inta badan qofka maaragtay laleeyahay stay at the home xaafadaada jooga stay at the home dadka caadiga xataa baadiyaha xataa waa laga bartay markaan waxaa waaye soomaalida dad macnaha waxay noqdeen oo multi language ah oo luqadda ingiriiska aad bay ugu horumareysaa dadka soomaalida ah marka stay at the home oo lagu soo celceliyo inta badan stay at the home waxaa waaye xaafadaada joog waxaa lagu leeyahay wax kala maahan waxaa la ilaalinayaa badqabkaaga iyo badqabka dadka aad la nooshahay familkaaga iyo guud ahaan society-ga bulshada markaas aad la nooshahay marka si loo ilaaliyo waxaa lagu farayaa bahda caafimaadka iyo talooyinka lagu siinayo waxaa waaye inaa xaafadaada joogto sidoo kaleeto qofka inuu ilaaliyo waxaa la yidhahdo personal hygiene is very important tinki waaye macnaa waa shay aad u muhiima waaye in la ilaaliyo waxaa la yidhahdo personal hygiene waxaa waaye waa nadaafadda shakhsiyadeed qofka inuu ilaaliyo nadaafadda shakhsiyadeed ay ugu horeyso inuu qofka sameeyo maxaa la yidhahdaa regularly hand washing ama si joogto ah qofka in gacmaha loo dhaqdo sidoo kaleeto maxaa la yidhahdaa waxyaabaha kaleeto oo asaaska inuu sameeyo qofka inuu maxaa la yidhahdaa markii uu dibadda u baxaayo qofka inuu qaato waxa la yidhahdo ama uu sameeyo waxa la yidhahdo personal precautions wax kaleeto ma ahan waxaa waaye qofka inuu maxaa la yidhahdaa to wear gloves sidoo kale use maxaa la yidhahdaa face mask inuu maxaa la qofka inuu gloveska gacmaha inuu qaato sidoo kaleeto mask qofka inuu xirto si uu u taxadiro taxadirkaas lagu leeyahay wax kaleeto maahan waxaa la ilaalinayaa badqabka naf ahaaneed iyo yacni mid bulsho ahaaneed iyo mid shakhsi ahaaneedba intaba waa la ilaalinayaa waa ogtihiin walaalayaal digniinaha waa iska daba dhacayaan mar cabaar sii jirtay waxaan akrinayay digniin ay soo dhigaysay wasaaradda caafimaadka Ministry of Health of Somalia taas oo maaragtay bulshada loogu digayay in halista cudurka covid-19 ay sii kordhayso ugu dhawaad 500 iyo xoogaay ay sii marayso maanta kaliya sidaan xog ku maqlayay 13 qofeed ayaa u dhimatay dabcan wayna kasii badan karaan marka walaalayaal waxaan iskaga digaynaa halista cudurkan uu leeyahay dad badan waxaa moodaa weli inaysan ku baraarugsanayn halista cudurku uu leeyahay
iyo maxaa la dhahaa sida uu u saameynayo iyo maxaa la dhahaa iyo raadka dadka uga tagayo. Maxaa la dhahaa qoraal maalin dhexdaas aan akhrinayay ayaa wuxuu sheegayay cudurkan qofka haddii uu jirkiisa soo galo waa adag tahay siduu maaragta uga baxo. Saameyn dambe ayay ku yeeli doontaa iyada oo qofka dhibaato u geysan doonta xibnaha muhiimka ah ee langiska oo kaleeto qofka langiskiisa oo shaqo weyn runtii ahaantii noo haya maxaa la yidhahdaa ka dhibaato uga geysan doonto. Sidoo kaleeto waxaan uga digayaa dadka smokerska ah ama dadka oo maxaa la yidhahdaa sigaarka caba in maxaa la yidhahdaa ayaga ruuxoodu ay ka digtoonaadaan halista cudurkan. Maxaa la yidhahdaa waa kasii nugul yahay qofka hadduu sameeyo smoking ama sigaar cabidda sidoo kaleeto waa u nugul yihiin dadka sigaarka cabaa maxaa la yidhahdaa cudurkan ayaga ah. sidoo kaleeto dadka maxaa la yidhahdaa above 50 dadka ka weyn 50 sano ayaa inta badan cudurkan ah dadka uu saameynayo. sidoo kaleeto dadka qaba maxaa la yidhahdaa cudurrada chroniga ah chronic wax kale maahan waa cudurrada soo jiitamayay ama cudur maxaa la yidhahdaa waqti badan soo jireen ah ama sii jirayaan. waa cuduradaas ay kamid yihiin waxaa la yidhahdo diabetes mellituska waxaa la dhahaa ama sokorowga. sokorowga waa ognahay waxaa la yidhahdaa waa wax cudur chroniga waaye inta badanna dadka obiska ah iyo waxaa ay ku badan yahay dadka waayeelada ah. marka iyo sidoo kaleeto waxaa la yidhahdo hypertensionka asaga iyo maxaa la yidhahdaa HIV AIDSka iyo sidoo kaleeto hepatitiska. marka walaalayaal waxaasoo dhan waa iskaga digaynaa waa mahadsantihiin maxaa la yidhahdaa